tan iyo markuu soo shaabaxay heshiis beeneedkii ay Somaliland iyo Itoobiya ay wada gaareen waxa kordha shakiga laga qabo ee dowladda Imaaraadka iyo kaalinta ay ku lahayd in Itoobiyaanka ay markaan door ku yeeshaan xeebaha biyaha cas ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadaysa tillaabooyin hoos lagu dhigayo xiriirka kala dhexeeya Imaaraadka iyadoo heshiisyo waaweyn la gashay Qatar, Masar iyo Turkiga. taasina waxaa walaac ka muujiyey Abu Dhabi u aragta khatar weyn iyo in Soomaaliya ay ka tashatay. Waxaa intaasi dheeraa in saraakiishii u qaabilsaneed dalka Yaban iyo Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerar ka dhacay xerada General Gordon ee Muqdisho. taasina waxaa la tilmaamayay in madmadowga ay sii kordhisay. labadii bilood oo la soo dhaafay mushaarka ciidamada ay sida gaarka u tababareen ama dowladda ay ka gacan siiyeen ayaa mushaarkoodii ay ka maqnaa, waxaana lagu tilmaamay sababta inay ahayd xiriirka labada dal oo aad u xumaaday iyo dhaqaalihii ay ku kabi jirta dowladda oo ay qoosatay Imaaraadka. ilo xogogaa leh ayaa tilmaamaya ilaa iyo hadda inaysan jirin mushaaraad la fasaxay markii laga reebay in ciidamada dhaqaale kale oo dowladda ay ku xalisay, balse waayey dambe hadalhayntooda ayaa taagneed mushaarkaas oo ilaa iyo hadda ciidamada dowladda qayb ka mid aysan qaadan. Imaaraadka ciidamo badan oo boolis militari iyo amniga Muqdisho sugo qayb ay ka yihiin ayay Soomaaliya ka gacan siisay tababarkooda, taasi oo mar kale dowladda la xaqiijiyey inay xilligan dhanka dowlado kale u wareegtay. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay hadallada qaarkood dhankeeda ku tilmaantay dacaayad wararka sheegaya in hakad ku yimid mushaarka qaar ka mid ah ciidamada dowladda sababo la xiriira in mid ka mid ah dalalkii shisheeye ee ciidamada Soomaaliya ka caawin jiray mushaarka joojiya lacagihii kaalmada u ahaa oo bixin jiray. warbaahinta qaar ayaa qortay in xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya hoos u dhacay kadib markii dowladda Soomaaliya la heshiisyo difaac la gashay Turkiga, sidoo kalena ciidamada u tababaro Soomaaliya oo muddo sanado ah. hase yeeshee wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Yuusuf Al-Cadaala wa Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa beeniyey warka isagoo intaasi wasiirku uga gaabsaday si gooniyana uga hadlay warka la xiriira dacwadda Imaaraadka iyo kaalmihii dowladda ay siin jirto oo la jaray. ayuu ku sheegay inaysan war jira ahayn ciidamadana ay xaquuqdooda helaan sida hadalku u dhigay. heshiiska Turkiga ay la gasho Soomaaliya oo dhigaya 10 sano oo Turkiga ay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya, ciidamo badeeda u dhisi doona Soomaaliya, hase yeeshee oo ka koobnaa mid dhaqaale iyo difaac ayaa sidoo kale waxay Soomaaliya heshiiskaasi dhanka kale kaga faa'iideysanaysaa kheyraadka badda ee la saxiixatay dowladda Turkiga. Soomaaliya oo heshiisyo difaac la gasha Turkiga, Imaaraadka, Sacuudiga, Uganda, balse waxa wadamada badani loolan ugu jiraan shidaalka Soomaaliya oo ay dowladdu sheegtay in ay la soo saari doono dabayaaqada sanadka 2024 markiis ugu horreeyay. marka loo eego dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee xoogaystay iyo qorshaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Imaaraadka saaxiib koobaad u ahaa balse hoos u dhigay waayihii dambe, waxaa muuqata inaysan si shaki la'aan Imaaraadka hoos u dhigaya dhammaanba kababkii miisaaniyadda iyo dhaqaalihii uu ku tari jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ilo xogogaal ay xaqiijinayaan. ilaahan waxay tilmaamayaan in dowladda ee Soomaaliya ay haatan ka fakaraysa sidii hoos lagu dhigi lahaa guud ahaanba dhaqaalihii iyo kabkii miisaaniyad oo ay ka heli jirta dowladda Imaaraadka Carabta, taas oo mar kale albaabada ka soo xiri doonta Abu Dhabi horseedna u noqonaysa fashil culus oo durbadiiba ay lugaha la gasho, isla markaana qorshaheedii Soomaaliya san hirgelin. si shaki la'aan ayaa loo xaqiijiyey mas'uuliyiin dowladda ka tirsan ayaana shaaca ka qaaday in uu Imaaraadka garwadeen ka yahay heshiis beenaadka Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen oo dowladda ay kaga guuleysatay maalmaha soo aadan Itoobiya ku qasbanaatay inay si degdeg ah kaga noqoto. guud ahaan wararkii ugu dambeeyay arrintan la xiriirta ayaa tilmaamaya xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka in dadka inta badan ba aysan la dhacsanayn maadaama la tilmaamay dowladdaas dhammaanba wadamada saaxiibka dhow ka dhigtay in ay ka rida qalalaasad dagaalo sokeeyo iyo iska horkeenida faragelin toos iyo madax bannaanidooda tillaabooyin ka dhana, balse Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa in ay kasii fikari doonto sida xiriir ula yeelan doonto maadaama dhaqaalihii kabkii iyo miisaaniyaddii ay ka heli jirtay ee lacag ah ee hoos u dhigtay Abu Dhabi waayihii ugu dambeysay. markaanu aadna dalalka Qatar iyo sidoo kale Turkiga ayaa dhankooda xoojinaya kaalmihii iyo dhaqaalihii military ee Soomaaliya ay ka heli jirtay. dowladda hore ee farmaajo Qatar saaxiib way lahayd Imaaraadkii Qatarna xiriirkooda ma wanaagsana, taas ayaana sabab u ahayd in loolan culus oo ay golaan labada dal Imaaraadka ay Soomaaliya ay Qatar kaga guuleysatay xiriirkana dowladdaasi loo jaray, taasi oo markii Xasan Sheekh Maxamuud iyo dib loo soo celiyey saaxiib koobaad uu ka dhigtay, balse haatan ay dad badan qabaan inay tahay mid uu shalayto ka bixinayo. isku dayga Imaaraadka waxay tahay dowladda mid looga digayo oo la leeyahay way naafayn kartaa dowladnimada soo koraysa ee Soomaaliya maadaama dalkan uusan fiirin maslaxad dal kale danihiisana uu ku gaaro. sida muuqata qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tillaabooyinka ay qaadayso oo wadajirka ayaa kuwa ka guuleysan kara xilligan in afka ciidda loo daray isku day kasta oo dhinacyadan ay ku howlanayeen
mar kalena la doonayo in lasoo gabagabeeyo. guud ahaanba dowladda federaalk ee Soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka iyo iskaashiga militari ay la galaysa ayaa aad u xoogaystay tan iyo markii uu soo kordhay heshiis beenaadka Itoobiya iyo maamulka Somaliland ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya, taasoo dowladda ay gaashaanka u dirtay dagaalada diblomaasiyadeed ee gashana guud ahaanba kaga adkaata fagaarayaasha caalamka Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa. Turkiga iyo Qatar miyay u qaadan karaan kaalinta Imaaraadka? Labadan dowladood ayaa inta ay tarti Imaaraadka ka badan taray Soomaaliya. Turkiga si gaara waxaa haatan heshiis buuxa ula galay dalkeena, kaas oo qeexaya guud ahaanba inuu soo saaray shidaalka Soomaaliya, kheyraadka badda noocyadiisa kala duwan, ugana faa'iideeya dalkeena, ilaaliya biyaha, uu dhiso ciidamo bad, sidoo kalena uu bixiya ciidamada gorgor tababarkooda iyo qaybo ka mid a dhaqaalaha ay qaataan, taas oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay sidoo kale Turkiga inuu sii laba jibaari doono. Dowladda Qatar dhankeeda miisaaniyad iyo dhaqaale xooggan ayay ka heli jirtay Muqdisho Dooxa, balse haatan ayaa muuqata inuu xiriirkooda soo wanaagsanaanayo. Dhawaana iskaashi militari oo xooggan ayay labada dal wada galeen, kaas oo qeexaya mar kalena albaabada ka soo xiri doona Imaaraadka. Si kastaba ha ahaatee, loolanka wadamada Khaliijka iyo kuwa reer galbeedka ee Soomaaliya ayaa xoogaystay. Markii la yiri shidaalka Soomaaliya ayaa la soo saarayaana, dacwadaha iyo dalalka istikada ayaa batay. Sacuudiga iyo Imaaraadkana waxay ka wada simeen doonisteeda ku saabsan haddii Soomaaliya shidaalkooda uu soo baxo inay tahay mid khatar ku ahaan doonta dhaqaalaha wadamadaasi dhex eegaago. Soomaaliya sida muuqata waxay ka bixi doontaa saboolnimadii muddada raagaadisay, qarankana waxa uu qaatay go'aano waaweyn oo maslaxad ugu jirtay jiritaanka Soomaalida jiilalka dambe. Go'aanada ku wajahna Itoobiya waa mid looga guulaystay. Damaacigii Abiy Axmedna waxa uu ku fashilmay iskuday kasta iyo tillaabooyinka uu qaaday in la soo gabagabeeyey. Marka loo eego xiriirka sii xumaanaya Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya, wadamada kale ee kordhiya taageerada ay dowladda siiyaan qorshaha wadamada reer galbeedka ee xoogaystay, Abu Dhabi waxaa moodaa inay luminayso fursad muhiim ah oo xilligan ka faa'iidaysigeeda wax weyn u ahaa.